السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا يوم ميلا جوكتان بوايد سلامي. أول حالة وفاة بكورونا فيروس في أمريكا في ولاية واشنطن اليوم. وعن ربا إن شاء الله تعالى كلمة يرى كوبان إن كيراهضو عذر كان الدنيا وريريي ومدي أردن اسكوضا دحياعيي إنان وحير آن كسو جيديو صدح قضبان ربا إن أقيبيو marka koobaad waxaan rabaa inaan ka macluumo ahaan aan idin sheego qofkii ugu horeeyay oo Mareykanka ku dhinta maanta ayuu ku dhintay waana gobolka aan deganahay magaalada Seattle Washington ayuu maanta ku dhintay. waxaan rabaa marka inaan laba qodob ama saddex qodob aan wax ka iraahdo. qodobka koobaad waxa weeye waa dilaal ah ama wuxuu ku tusinayaa maradkan khatiirka ee khatarka ah yar in la arkaynin degdega u soconaya cajziga iyo tabardarrada bini aadamka. rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam cudur kasta likulli daa'in lahu dawa. cudur waliba wuxuu leeyahay dawo leeyahay qofkii garan iyo qof aan garanayninba. taasi marka waxay daliil kula tahay inuu ayna bini aadamku ayna garan kareen inaynan tabartoodu meel gaarsiisnayn ayay daliil kugu noqonaysaa. ama cudurkan bini aadamku waxa uu ku dhacayo dhan waa wuxuu soo galabsaday. rabbi wuxuu leeyahay wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathiir. waxa idin ku dhacaya waa waxaad shaqaysateen wax badan alla wuu noo dhaafaya. geeriduna أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حتى هداد قول الطبقة قولك أوهوسي اسكو صوحيدو ويكوغودا عيسايو ميسكي علين كريسيد قفكو ويهاليلي ساميلو جوغبا. ummadana dadka qaar baa dulmigooda iyo dhibaatadooda laga yaabaa in lagu ciqaabayo oo sidoo Ilaahay baleeyahay wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. fitan aan ku dhacaynin dadkii garabsaday ee dulmiga sameeyay keli ah kuma dhacaysa ka dhowrsada. laakiin Ilaahay xamdigii rasuulka wuxuu yiri kullu yub'athu ala ma mata alayh. qof walba waxa lagu soo saari doonaa sida uu ku dhintay ayaa lagu soo saari doonaa. haddii adigoo xaaji ahaa aad dhimatay hadda cumrooyinkii iyo wadamo badan baa cumrada la xidhay waad aragtay adigoo cumraysan oo dharkii qaba xaramka haddaad dhimato إلهي حمدي ووح لو فرحة ومحاجر حسن الخاتمة أي إلهي قفك وافجي محاجر أديو قيامة وحال وصول صاري لبيك اللهم لبيك له. مركا قفك وحال وصول بحوها لكن في تنتو مركا كرد على ضدك ظلم السميي فسقي بدنا يددك كلا يسكون حجري كل ووضع الصيبة يسا مسلم إيو قفا مسلم هين بوالا ودما. وحربا مركا إنان لبا قضب وكالو ميدئوية هي نصائح وحيابا ما ركتي aan dadka kula talinayno in sha Allah ta'ala maxajira argagax badan baa jira. horta waa marka koobaade qadarka Ilaahay dad muslimiina baan inagu nahay. qadarka al-qada wal qadarna waan ku kalsoonahay. waxaan Ilaahay inoo qarina inagu dhici maayo. meel kasto joogtana geeridu iyo waqtigaagi dhaafi maysid qofoona. taasi waxay keenay marka argagax iyo inaynan inagu dhicin alxamdulillah. waa marka koobaade waxa la yiraahdaa الوقاية خير من العلاج. إن مركو ربا الدلال إيا كهورتك لساميو أيا وحي كفي عنتا إن مركا دمك تبطك عاد ساميسو ليستويو وحي كفي عن مركو ربا إسئلال إن لساميو وحانجرا وحي ليلة توكل إيا تواكل باك لجرا. يعني التواكل كوحا ويقفكو إنو مال إنتو سكفر يستير هذا أنو وحبا ما السامين أيو إلهي بانسكا آمن سنة لكن وحي كفي عن ألنا آمن أسبابتنا الله إمو. haddaba asbaabta cudurkan ilaa hadda la sheegay dhakhaatiirtu maxaa la sameeyaa. waxaa la sameeyaa waa marka koobaad waxaa la yiraahdaa in la dhaqo gacmaha lagu dhaqo biyo iyo saabuun. waa waxa ugu fiican gacantaada inaad dhaqdo. in laga ilaaliyo intii suuragal ah in gacanta lagu taabto wajiga iyo indhaha iyo sanka iyo in lagu taabtana waa qayb kamid ah oo in qofku iska ilaaliyo oo isku dayo. waxaa kamid ah oo kale waxyaabaha ashkhaasta iyo dadka cudurkan ku dhacay meelaha ay joogaan inaan la gelin. ilaan islaamkeenu wuxuu ogol yahay
oo iyagoo ka hortood laynoo sheegay meel wabaa iyo cudur ka jiro inuusan qofku aadin, qofka meeshaa joogana inuusan ka soo bixin oo uusan imanin wadankii kale een waxba qabin inuusan u imaanin. waxaa kaloon rabaa inaan ugu daro dadka maalmahan duco waxaa jira aad la isugu dirdiro, waa xadiis saxiixa. axaadiista saxiixa ducooyinka mar walbay habboon yihiin, laakiin dadka markay dhibaatada ay taabato ayay wax ogaadaan. xadiis rasuulka ka sugan baa jira sala allahu calayhi waalihi wasalam uu leeyahay allahuma innii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami ومن سيء الأسقام. إلهي بو كما جنجل يا قفكو وحل يداهدو عذرك برسكا إيه عذرك جدام كلدا إدتك جوجوية إيه جنونك أو والدا إيه ومن سيء الأسقام وعذر حنحن أردن أو كجرا كورونا فيروس أو أيدسكو كجرا أو كجرا عذر سرطانك إيه مارتي وحيابها ووين وكلودن إدتك دلو أردن إنه قفكو ومار waxyaabaha calaamaadka lagu garto ruuxu inuu hayo cudurku waxa dabcan dhakhaatiirta ka hadlaaya, laakiin waa inuu sida hargabka oo kale xumad kulul inuu qofku leeyahay, cunaha oo kale uu xanuun badan uu leeyahay uu keeno, inuu dhafoor xanuun iyo madax xanuun badan uu isku arko. marka waxaa habboon qofka haddii lagu arko calaamaadkaas oo kale in isbitaalada lala xidhiidho. ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga badbaadiyo dadka muslimiinta aba meelay joogaan barabba inaga badbaadiyo, allah ina xifdiyo, allah ina ilaaliyo. wajazaakum allahu khayr. argagax yaan la samaynin, qadarka ilaahayna raalli aan ku noqono. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.